golaha wasiirada federaalka Soomaaliya ee lagu dhawaaqay 95% waxa ay ku yimaadeen rabitaanka madaxweyne Xasan Sheekh 3% isla ogol ku yimid talo cid kale oo kala hadashay fiilada ayay ku soo xaadireen labada soo hartayna waa dhacdooyin aan filasho badan laga haysanin sida muuqata ra'iisul wasaare Xamse doorkiisa ayaa aad uga hooseeyay filashadii hore loo haystay qaar ka mid ah saaxiibada Xamse ayaana durba bilaabay inay isla shaki geliyaan inuu jiro nooc kasta oo kala madax bannaaniya ra'iisul wasaaruhu madasha ka hadalkii uu ka jeediyay ma qarin inuu qaatay talada madaxweynaha muddo ka badan 3 jeerna waxa uu xusay inuu ku shaqeynayo rabitaanka madaxweynaha kuna sii shaqeyn doono Xasan Sheekh ayaa saaxiibadiisa siyaasadda ee qaarkood la soo maray mucaaradnimada 5 sano ee la soo dhaafay iyo kuwa maalmihii ugu dambeeyay ku biirayba ku tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee xukuumadda federaalka waxaan eegaynaa sooyaalka iyo dhiganaha xubnaha madaxweyne Xasan Sheekh soo xulay iyo sifooyinka imaanshahooda Maxamuud Cabdiraxmaan Beene waa mid ka mid ah xubnaha firfircoon ee UPD saami qaybsiga beelahana waa ay wadaagaan madaxweynaha waxa la rumaysan yahay inuu yahay saaxiib aragtidiisa aan la gaban gardarro garab iyo gaashaanna u noqda saaxiibkiisa hogaamiya 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu ahaa foolaadka mucaaradka guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ayuu soo hogaamiyey laakiin sanadkii ugu horreeyay ayaa daad ku qaaday markii ay isqabteen xukuumaddii khayre oo dalbatan in duba eegis guddiga lagu sameeyo maadaama mucaaradku u badnaa wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee hadda la geeyay Beene 5 sano ka hor waxay ahayd mid ka mid ah wasaaradaha aan la jeclaysan tagidooda balse kaltankan waxay ahayd mid si weyn loogu tartamay ama loo doonayay sida loo maamulay 5 sano ee la soo dhaafay ayaana horyaal ka dhigtay xujada Beene hortaala waa hanaanka maaraynta mashaariicda dalka xilli saaxiibada madaxweynaha lagu aliifayo inay mashaariic xoogga saarayaan si ay dhaqaale u tabcaan 2 Axmed Macallin Fiqi xildhibaankii codkiisa ku riday 2017 waxa uu ugu yeeray ayax suud xiran 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu dubdhexaad u ahaa mucaaradid xoog badan oo aan waxba hanbaynin ama xeerin aan lahayn kuna socotay kooxdii farmaajo hadda Fiqi waa wasiir waliba tagay wasaarad macna ahaan ka ballaaran filashada laga qabi karo ururdiimeedyada Soomaaliya waxa la xaqiijinayaa inuu ala sheekh yahay 4 sano ee la soo dhaafay Fiqi waxa uu isku maray xildhibaan golaha shacabka ilaa wasiir amni oo dawlad goboleed saaxiibtinimadiisa Xasan Sheekh iyo mucaaradnimadiisii ayaa u goosay wasaaraddan balse laba su'aalood ayaa dul hoganaysa waa noocee u maarayn doonaa shaqada hadda loo dhiibay saaxiibtinimadiisuse ma sii bulaali doontaa 3 Xasan Macallin xubin firfircoon oo kooxda ala sheekha 10 sano ayuu mucaaradnimo soo liqay hadda waa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka haddii uu Xasan Sheekh codkiisa xildhibaannimo ku riday 2017 mar kale isagoo aan xildhibaan ahayn ayuu taageero u noqday 2022 May markii uu ku hungoobay damciisa dhinaca farmaajo ee ra'iisul wasaarenimadana uu noqday Xasan Cali Khayre waxa uu saaxiib iyo wadaay siyaasadeed oo dani kalifta la galay Xasan Sheekh Xasan Macallin dadka yaqaana ayaa ku sifeeyay inaan isrogin balse toogtiisa aad maanka ugu haya inuu golaha wasiirada soo galo ayaa uga dhigan wasiiru dawladnimada xilligii Shariif inuu 10 sano kadib wasiir buuxa u soo dalacay hanaanka maaraynta wasaaradaha la isku daray ayaa sacabir u noqonaysa jaangoyntiisa siyaasadeed 4 Faarax Cabdulqaadir Maxamed muddo dheer ayuu ka soo shaqeeyay arrimaha samafalka oo u badan dhinaca waxbarashada aragtiyahan kooxaha islaamiyiinta ma qirsana inuu mar ku biiray balse saaxiibadiisa qaarkood ayaa xaqiijinaya inuu ka mid noqday kooxda loo yaqaano الجامعة الإسلامية ee ka jirta Kenya 2012 ayuu ka mid noqday xubno ka tirsan koox shuraaka ahaa oo isbahaysatay siyaasadana u soo diga rogtay xubin firfircoon ama udub dhexaad ayuu ka ahaa 4 sano iyo bilo dheeraad ah oo xilligaas ay kooxdiisu xukunka joogtay waxa loogu yeeri jiray magacyo kala duwan waxaase dhaba inuu ahaa nin awood badan gacantana ku hayay galalka xasaasiga ah ee siyaasadda Oktoobar 2014 ayaa lagu xasuustaa in ra'iisul wasaaraha xilligaasi Cabdiwali Sheekh Axmed xilka wasiirnimo ka qaaday Faarax una wareejiyay wasaarad kale balse khilaaf ka dhashay arintaas ayaa dhabaha u xaaray mawjado siyaasadeed oo ugu dambeyn kalifay in xukuumadda la rido bilowgii 2015 golaha shacabka federaalka ayaa diiday in Faarax iyo saaxiibkiis Cabdikariin Guuleed lagu soo daro golaha wasiirada waxayna codka kalsoonida u diideen xukuumaddaas sababaha lagu eedeeyana waxa ka mid ahaa inay fashilmeen imaanshihiisa hadda ee golaha wasiirada ayaa uga dhigan
in 5 sano oo uu bannaan joog ahaa hadda uu soo fuulay sallaanka siyaasadda. waxaa la rumaysan yahay inuu saamayn badan leeyahay, balse maalmaha iyo bilaha soo aadan ayaa jaan goyn doona in isbeddel ku dhacay iyo in kale. Faarax waxaa kale oo loo arkaa tiirdhexaadka kooxda isuwan ee xukunka joogta hadda, waana dhiganaha u taagnaan doona booska taliyihii hore ee Niise Fahad Yaasiin oo ay miisaanka siyaasadda isku dheelitiraan. 5 Doodishe waa xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga PDP ee u digareetay UPD. waa saaxiibka muddada dheer ee Xasan Sheekh. la taliye ayuu u noqday kaltankiisii hore ee madaxweynenimada. kooxda loogu yeero Damu Jadiid ayuu xubin firfircoon ka yahay. 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ahaa marjaca wax qoridda iyo aragtiyaha marka ay joogto mucaaradida kooxdii xukunka joogtay. qaar ka mid ah saaxiibadiisa siyaasadda ayaa leh wax ku saabsan amniga hore ugama shaqaynin, balse imaanshihiisa wasaaradda amniga gudaha ee waqtigan waxaa la aaminsan yahay in loo keeno saami qaybsiga iyo saaxiibtinimada guulaysatay ee isaga iyo madaxweynaha. deegaan ahaanna waxa uu ka soo jeedaa gobolka Gado. 6 Cali Cumar Balcad hore waxa uu soo noqday agaasimo madaxtooye xilligii Xasan Sheekh. xildhibaan golo shacab ayuuna soo qaatay waqtigaas. 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu garabkiisa taagnaa madaxweynihiisa, marna kama bixin, taasoo u goosay inuu ka mid noqdo shuraakada wax ka go'aamisa arrimaha siyaasadda ee hadda. mar kale hadda golaha wasiirada ayuu ka soo dhex muuqday, waxaana la geeyay wasaaradda arrimaha dibadda. 7 Abshir Ahmed Bukhari 2017 ayuu ka mid noqday xildhibaano ku midaysnaa Daljir oo ka soo horjeestay Xasan Sheekh, laakiin waayidii ra'iisul wasaarenimada ayaa mar kale saaxiib kala dhigtay isla kooxdii ay dirreen ilaa ay ku midoobeen magaca UPD. inkasta oo uu soo noqday gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare, wuxuu goosi Xasan Sheekh Maxamuud kadib sheegay inuu ahaa madaxii ololaha dib u doorashadiisa, taas oo hadda u goosay wasiir dawle. qaar ka mid ah isla kooxdaas ayaana leh ma qanacsana Bukhari, mana u bareeri karo mucaaradnimo kale oo cusub. 8 Cabdirasaaq Cumar Maxamed hore waxa uu soo noqday wasiir xilligii Xasan Sheekh, marna kama dhicin safkiisa. waxaa loogu yeeraa saaxiibka beesha xawaale ee madaxweynaha. Cabdullaahi Sanbaloosho oo maanka ku hayay inuu jagadan heli doono ayaa maalmihii ugu dambeeyay ee mucaaradnimada Xasan Sheekh markii uu guulaystay guuldarro siyaasadeed la kulmay. 9 2 kursi oo isku sidkan. golahan wasiirada waxaa ka soo dhex muuqday Saalax Jaamac iyo Biixi Iimaan, labaduba waa siyaasiyiin ka soo jeeda Somaliland. Saalax waxa uu ahaa senator, balse hadda wuu baneeyay kursigaas maadaama loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeen. 7 maalin dood iyo dagaal xoog leh ayaa ka taagnaa cidda noqonaysa ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Biixi iyo Saalax waxay ahaayeen bilowgii doorashadii dadbaneed dhinaca farmaajo, laakiin damacooda siyaasadda ee ku wajahna aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayuu uga dhex muuqan waayey kooxdii hore ee Nabad iyo Nolol, taasoo ay maalmihii ugu dambeeyay go'aansadeen inay raacaan tareenka Xasan Sheekh. dagaal iyo dood adag oo timid ayaa Biixi Iimaan u saamixi weyday helidda ra'iisul wasaare ku-xigeenka. dekanooyinkiisa siyaasadeed ayaana u gooyey wasiir ka hooseeya filashadii la hayay. 11 Dr. Cilmi Maxamed Nuur wasiirka maaliyadda ayuu hadda noqday. waa xubin sare oo UPD ah. 4 sano ee hore ee muddaxileedka Xasan Sheekh ayaa la aaminsan yahay in kursiga kaydka lagu hayay, laakiin ugu dambayn hadda u soo waariday wasaaradda maaliyadda. waxa uu hogaaminayaa wasaarad 5 sano ee la soo dhaafay shaqo ballaaran qabatay. xujo adag ayaana Cilmi iyo kooxdiisaba dul taala. 12 Axmed Xasan Aadan xogaayihii dhinaca maaliyadda ee madaxweyne Xasan Sheekh ururkiisa. wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ayuu qaatay. jagadan ra'iisul wasaare hore Rooble ayaa si weyn ugu doonayay saaxiibkiis Cabdullaahi Carab, laakiin daadka ayaa qaaday. Xasan ayaana ka doorbiday saacadihii ugu dambeeyay inuu soo dhawaysto Axmed Xasan cid kasta, waxaana uu meesha ka saaray xildhibaanada golaha shacabka ee kootada kursigaas. 13 Jaamac Xasan Khaliif oo ka mid ah xirta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda noqday wasiir matali doona kursiga Sool iyo Cayn ee ay ku leeyihiin golaha wasiirada. 14 Daawud Aweys oo xilligii Xasan Sheekh noqday afayeenkiisa ayaa hadda noqday wasiirka warfaafinta. waa hubanti muujinaysa is-hubaynta madaxweynaha. 15 Dr. Cali Xaaji wasiirka caafimaadka, inkasta oo hore uusan kooxda UPD si cad uga mid ahayn ama aan lagu ogeyn, haddana waxaa la aaminsan yahay markii uu kursiga soo helay uu kooxdaas waday iyo saaxiib la noqday si gaashaanbuursi siyaasadeed uu uga helo golaha wasiirada, taas oo ugu dambayn dhaxal siisay. 15 wasiir marka laga reebo waxaa kale oo jira ilaa iyo 5 kale oo ka mid ah xubnaha golaha wasiirada
oo ku yimid saamaynta madaxweynaha taas oo dhammaan muujinaysa in 26 wasiir ee la magacaabay 20 ka mid ay ku yimaadeen qalinka madaxweynaha ogtahay application Payc inaad lacag ugu diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta isla markaana ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagta waxay si degdeg ah ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Payc waxa isticmaali kara dadka ku nool America iyo Yurub kala soo deg App Store-ka ama Play Store